kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ad u joogtaan halkani waa baahin news warbixinadii ugu weynaa dhacdooyinka maalinlaha ayaanu eegi doonaa haba ugu badnaadaane marinka Gaza. Israel ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka madaxii qeybta diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Xisbullah. 9 askari oo IDF ayaa lagu dilay marinka Gaza Isniintii. Ciidamada IDF ayaa bilaabay baaritaan ku aadan rasaasta sababtay dhimashada 6 askari. Blinken waxa uu la kulmay hogaamiyaasha Israel boqoshadii afraad tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay Israel iyo Falastiin, waxaana uu sheegay inay ogolaadaan Falastiiniyiinta inay ku laabtaan guryahooda waqooyiga Gaza. Blinken ayaa ku tilmaamay eedaha xuquuqa ee lagu soo oogay Israel mid aan waxtar lahayn. David Cameron UK waxa uu sheegay inuu ka walacsan yahay in Israel ay ku xadgudubto sharciga caalamiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel ayaa iyana beenisay inay ku howlan tahay qorshayaasha lagu wareejinayo dadka Gaza degan ee marinka Gaza. Ciidamada iyo Mareykanka iyo kuwa UK iyaguna waxay soo rideen gantaalada Xuutiyiinta weerar ay ku qaadeen badda cas. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa UK ayaa soo riday gantaalka Xuutiyiinta iyo weerarada ay ku qaadeen badda cas. Ciidamada Mareykanka ayaa 21 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ay Xuutiyiinta Yemen ee fadhigeedu yahay dalka Yemen salaasadii lasoo dhaafay ku rideen badda cas ee koonfurta badda cas, iyagoo kusii jeeday marinada maraakiibta caalamiga sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin wax dhaawac ama khasaare lasoo sheegay, isagoo intaa ku daray in weerarkan uu ahaa kii 26aad ee Xuutiyiinta ay ku qaadaan marinada ganacsiga ee badda cas tan iyo 19 bishii November. Xogaga Xuutiyiinta oo ay taageerto Iiraan ayaa sare u qaaday weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas, iyagoo kasoo horjeeda dagaalka Israel ee Gaza. Qadad kala duwan ee maraakiibta ayaa hakadgalay howlihiisii shaqo hakadgeliyey taa beddelkeeda waxay ku mareeyeen socod. Xuutiyiinta ayaa dhanka kale waxaa iyaguna la sheegay in ay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan weerarada ilaa ay Israel joojinayso colaadda Gaza, waxayna ka digeen in ay weerari doonaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka haddii kooxdan lafteeda la bartilmaameysado. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in 18 diyaaradood kuwa aan duuliyaha lahayn, 2 gantaal oo nooca maraakiibta iyo 1 gantaal ay soo rideen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska. Israel waxa ay xoojisay duqeymaha dhulka ee bartamaha koonfurta Gaza, iyadoo daraasiin qofood lagu dilay weeraro habeennimadii ay ku jiraan 15 ka soo jeeda hal qoys oo ku sugan magaalada Rafah oo Israel ay ku dhawaaqday aag nabadoon. Dhulka la haysto ee daanta galbeed, ciidamada Israel ayaa qaaday weeraro isdaba joog ah, waxaana lala beegsaday qaraxyo iyo rasaas ay fureen dagaalyahanada Falastiiniyiinta. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Ramallah kula kulmay madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas, iyadoo la filayo mudaharaadyo. Ugu yaraan 23,210 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 59,100 ayaa lagu dhaawacay weerarada Israel ee Gaza tan iyo 7 Oktoobar halka ka soconaya. Ugu yaraan 10 qof ayaa dhanka kale lagu dilay dalka Ecuador weeraro xiriir oo lagu eedeeyay kooxo hubeysan, iyadoo dalkaasi uu galay qalalaase ka dhashay waxa uu madaxweynaha cusub ku tilmaamay iska horimaad hubeysan oo gudaha. Madaxweyne Daniel Noboa oo 60 sano jir ayaa ku dhawaaqay 6 maalmood oo xaalad degdeg ah iyo bandow habeenimo Isniinta kadib baxsashadii Joy Odolfo, hogaamiyaha burcadda ugu weyn ee Ecuador, iyo Los Choneros oo 34 sano oo xariga ku jiray xabsiga gobolka Lee oo ku yaala magaalada dekedda ee dalkaasi. Kooxaha gangistarada ayaa muujado qaraxyo ku qaaday guud ahaan dalka iyo xabsiyo badan buuxdhaafiyay kadib markii 8 qof lagu dilay, 3 lagu dhaawacay weeraro ka dhacay quyl halka loo yaqaano, halka dadyo kala duwan halkaasi lagu dilay sida wararka aynu ku helayno. Dambiilayaal hubeysan ayaa si xun loogu dilay magaalada u dhow Napoli, booliiska ayaa sheegay goor dambe. Haddaba kooxo maxalli ayaa qafaashay dhowr askari oo booliis ah, waxayna qaraxyo ka fuliyeen magaalooyin dhowr ah. Kooxo burcad hubeysan iyo kuwo iyagu huwan ah ayaa la sheegay in ay dhaceen stuudiyaha telefishinka dowladda ee dalkaasi, iyagoo wata qoriyo walxaha qarxa xilli ay kaamirooyinka duubanayeen. 13 nin ee hubeysan ayaa markii dambe la xidhay. Magaal xebeedka ugu weyn Ecuador oo weeraradu ay ka dhacayaan ayaa loo arkaa tan ugu khatarta badan dalka, iyadoo dekedaheeda ay xudun u yihiin tahriibinta daroogada. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen ugu yaraan 23 dhacdo oo rabshada oo kala duwan ay ka dhaceen 8 gobol oo ay ku jiraan tiro qaraxyo baabuuro loo adeegsaday, sida warbaahinta Al Jazeera iyadoo ay ku helaysay xogahaasi. Bal dhanka kale waanu eegi doonaa, tani waa tijaabadii ugu horreysay ee weyn ee Noboa oo ah nin ganacsada oo xafiiska la wareegay bishii November
isagoo ballan qaaday in uu wax ka qaban doono heerka rabshadaha sii kordhaya ee waddanka koonfurta Amerika ka tirsan. Dhimashada rabshadahan gaadhay 8,000 sanadka 2023 aynu kasoo gudubnay. Dowladdu waxay tiri ku dhawaad laba jibaar tirada 2022 in ka badan 4,500 oo rabshado la xiriira muqaadaraadka ayaa waddankaasi ka dhacay. Mareykanka iyo Yurub waxaa inta badan waddankaasi waxaa la sheegaa inuu yahay waddan caan ku ah ka ganacsiga kokeynta. Dhanka kale, safaaradda Shiinaha iyo qunsuliyadda guud ee Ecuador waxay si ku meel gaar ah u xidhnaan doonaan laga bilaabo Janaayo 10 ilaa ogeysiis dambe, sida lagu sheegay bayaan Arbacadii maanta ka soo baxay halkaasi. Dhanka kale, saacado kadib markii xisbiga talada haya ee Awami League ee Bangladesh lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii Axadda, taasi oo mucaaradku ay qaadaceen, ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina waxa ay martigelisay safafka diblomaasiyiinta ajaanibta ah, mid walbana waxa uu yimid inuu u hambaliyo. Waxaa halkaasi ku sugnaa ergada Hindiga, Philippines, Singapore iyo dalal kale. Sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaraha soo booqday safiirada Ruushka iyo Shiinaha. Dhanka kale, magaalooyinka Washington iyo London, dowladda Ingiriiska ee Mareykanka ayaa dhaliilay doorashadan oo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Washington ay rumaysan tahay in hanaanka codeyntu uusan ahayn mid xor ah oo cadaalad ah. Waxaana ka xunnahay in dhammaan dhinacyadan aysan ka qaybgelin. UK waxa ay dhaleeceysay waxa ay ku tilmaamtay falalka cagajugleynta iyo rabshadaha inta lagu guda jiro doorashada. Jawaabta Bangladesh ayayna arrintaasi laga sugaya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh markii wax laga weydiiyey faalooyinka Mareykanka UK kala duwanaanshaha u dhexeeya cambaareynta reer galbeedka iyo soo dhoweynta Shiinaha iyo Ruushka ayaa daaqad u ah cawaaqibka siyaasadeed ee dibadeed ee suurtagalka ee ka dhalan kara dib u soo noqoshada Hasiina ee xukunka, ay yiraahdeen falanqeeyayaasha siyaasadda iyo dhaqaalaha galbeedka. Xiriirka sii kordhayay Hasiina ee Shiinaha iyo Ruushka oo ka sarreeya diidmada Bangladesh ee walaaca ay ka qabto doorashada waxay saameyn kartaa xiriirka Dhaka, laakiin taasi waxa ay ku dambeyn kartaa in ay ku riixdo Dhaka xitaa u dhow Beijing iyo Moscow. Falanqeeya dhanka siyaasadda oo fadhigiisu yahay magaalada Dhaka ayaana sheegay inuu rumaysan yahay inay suurtagal tahay in Mareykanka uu xayiraad kusoo rogo fiisa ay cunaqabateyn la beegsado shakhsiyaadka door muhiima ka qaatay qabsoomidda doorashada, taasi oo kormeerayaasha madaxa bannaan ay ku dhaleeceeyeen rabshado iyo cagajugleyn ka dhana xisbiga talada haya mucaaradka. Bishii Agoosto, Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay xanibaadihii ugu horreeyay ee fiisayaasha qaar ka mid ah saraakiisha Bangladesh, laakiin sidaasi ayuu yiri waxa ay halis gelin kartaa haddii la sameeyo qorshayaasha Mareykanka ee ah in Bangladesh lagu xidho istaraatiijiyadda lagu dheelitirayo kor u kaca Shiinaha, gaar ahaan xiriirka dhaqaale ee qotada dheer ee u dhexeeya Dhaka iyo Beijing. Shiinaha waxa uu ahaa saaxiibka ganacsiga ugu sarreeya ee Bangladesh in ka badan 10 sano. Muddadaasi Hasiina ay xukuntay oo aan kala go' lahayn. Dhanka kale, Ruushka ayaa Bangladesh ku taageeray furitaanka warshadii ugu horreysay ee tamarta nukliyeerka. Dhaka waxa ay Moscow ka heshay sahayadii ugu horreysay ee uranium-ka bishii Oktoobar. Ruushka sidoo kale waxaa qeybaha ugu weyn ee saddexda badeeco laga maarmaanka shidaalka, badarka, cuntada iyo bacriminta. Bangladesh oo qiimaheedu uu jaban yahay ay ka heshaa. Haddii reer galbeedka oo uu hogaamiyo Mareykanka ay aad ugu qasbaan dowladda cusub ama ay cadaadiyaan, marka xiriirka Bangladesh ee Ruushka uu kobci doonaa si degdeg ah, ayuu yiri mid ka mid ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xaaladii ugu waaweynaa caalamka oo aanu daqiiqadahan kusoo koobeynay. waad ku mahadsantihiin. Subscribe inoo saara channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaaga asxaabtiin.